السلام عليكم dhamaan akhyaarta sharafta leh hadba meel walba joogtaan waa salaaman tihiin sidaad la socotiinba whatsappka bishan soo socoto February 8 waxaa shuruudihii isticmaalka waxbaa laga bedelayaa wuxuu soo rogay sharciyo ah in qofka personal informationkiisa lala wadaago Facebooka sida magacaada adresska guriga meesha aad degan tahay in waxaas dhan lala wadaago ayuu soo rogay shuruuc noocaas soo rogay 8 bisha haddii aadan ogolaaninna waa laga xiraa haddii aad ogolaatidna waa kaasa waa la wadaagaa waxaa jiro applicationo badan oo sida whatsapp oo kale ama kasii fiican waxaana la yiraahdaa pip ayaa la yiraahdaa waa pib ayaad ku qoraysaa meesha kadib waxaa kuu soo baxay applicationkii ayaa kuu soo baxay install leedahay applicationkan halkii mar waxaa ku shaqeysan kara 10 qofood oo video chatting call ah waa 70 megabyte waaye u dhameeyo kadib waxaad leedahay open markaad tiraahdo kadib waxaad leedahay get in yar sugaysaa get pip ayaad leedahay continue leedahay waxaad leedahay allow kadib halkan waxaad ku qoraysaa lambarkaada ayaad ku qoraysaa kadibna waxaad leedahay get verification code haddaad rabtid virtual number waa gadan kartaa yes messageka ayuu soo dirayaa okay allow meesha waxaad ku qoranaysaa magacaada ku qoranaysaa okay dhan ayaad leedahay allow waa kana marka saan kugu soo degiyay okay message haddii qoraal aragto messageka tegaysaa call sidaarto waa wacaysaa discover social more inta rabtid marka intaasaan ugu baxaya hadduu ilaa yiraahdo